bararka qabyaaladda eexda qaraabakiilka cadaalad darrada muusuqa baahsan ee dalka ka jira 7 sano ugu dambeeyay haddii aad musharax madaxweyne tahay maxaa kaaga qorshaysan inaad wax ka qabato waayo dadka Soomaaliya wax loogi 2000 daayiryaale wuxuu ka tagay dal midaysan oo isku dhafan oo dadkiisu aaminsan laakiin maanta dadkiisu iyo dalkuba way kala tirfaqsan oo isma aaminsana maxaa adiga kaaga qorshaysan inaad dalkii aad isku soo celiso midaysan Soomaaliland maanta waa ogtiino dalkeena inta aynu ku sheegay way jirtaa ma ogti intaaba ay jirtaa waxa way koow hadda xusantiin 94kii markii habru isleeyeen waxaan sameeyay gudidii aniga xasan samatar gudidii dib u heshiisiinta Soomaaliland Peace Committee aan sameeyay oo dibad aan loo heshiiyay imakana waan ku jirnaa Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo khaatumo iyo Soomaaliya wada hadaladeedii waan hadda ku jirnaa taas waxa weeye in dadka la mideeya ayaa koowa qabyaaladda waxa ku xidhantay kolba cidna madaxda ah hadduu qofka madaxda uu iska meeydo qabyaaladu cadaalad ku shaqeeyo ka hooseeyna ku shaqeynaya marka waxaan keenay insha Allah taala madax iimaan qabta oo aqoon leh oo caaqil keenay oo suldaan keenay aqoontiisu keentay oo iimaan loo Ilaahay ka baqaya ayaan keenay sharci ilaaliyana oo sameeyna waxa waddanka sameeyay qabyaalada iyo musuqmaasuqa waxa weeye waa mushaharka yar wasiir qaawan oo iska yimo London laga soo eriyay UA ka xaas ka soo eriyeen marka wasiir ka dhigay oo caruurtiisii gabay marka wasiir ka dhigtid soo wixii qariiran maayo marka nin aan shaqaale ah tahay $100 qaado oo sicir baraka jiro oo in iskuulka jiro dawad lacag tahay soo isna xadi maayo waxaan siinaa lacag macaan waxaan siinaa mushahar fiican ma sameeyna adaal sharcina waxaan kamid ahay dadka ka soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag yacan hal anna marka dawladda eegto 2 nin baa naga jira xukuumadda waxaan naga jira afayeenka golaha guurtida oo kaliya dadka reer Soomaaliland waxaad moodaa in gobolada dhexe afayeenka golaha guurtida indho waxaan ku weydiinayaa gudoomiye wada hadal baad kula jirtaa madaxweynaha dawlad goboleedka Khaatumo Professor Cali Khaliif Galeyd annagu waxaan tirsanaa cadaalad darro ah in Soomaaliland la isku koobay beel kaliya bal maxaa laga tirinayaa in 25 sano ay Soomaaliland cadaalad darro ay ku soo dhaqmaysay ku jirtay maanta ma eegtahay in Soomaaliland ay dib u bilaabayso cadaalad iyo midnimo wax lagu qaybsaday shirkii Boorame 93kii si fiican baa lagu qaybsaday waxa la siiyay waxay cidda madaxweynaha noqotaa cidnaha noqoto madaxweyne ku xigeenka cidnaha noqoto baarlamaanka qolnaha noqoto maxkamadda sare saasay ku socotay cigaal Ilaahay u naxariistay ninkii loo injiriyaal madaxweynaha way yara taabtay way yara qalday nimanka afgambiye waa kulmiye afgambiye bahashi haddaan nahay madaxweyne ku xigeenkii waxaanu siinay qolooyinka reer Sool baan siinay raacno ya foodka moogta tiina waana imaka hagaajina wada hadlina dhulbahanta oo dhan oo isku dhanbaan hadda sharaf qabanayna waxaan sameeynaa sharci wanaagsan oo qof kas oo dhulbahanta qolo oo danaheene qof kasto reer Soomaaliland oo xaqiisa siinaya ayaan sameeynaa qabiil wax ku qaybsan mayno waxa lagu qabsanaya qof kasta afrisiisa Soomaaliland xuquuq midaysan baa la siinaya hadaa la yiraahdo oo aad iyo aad baad u mahadsantahay soo booqashada nagu soo booqatay waxaan nahay dhalinyaradii waddanka u soo bixisay runtii xisbigaaguna uu ka yar duway xisbiyada kale oo dabcan loolankan dagaalkan iyo cayda iyo xisbiyadu siinayaan waad ka fadhiisateen waan kugu mahadbalyeelena madaxweyne waddankii waad arkaysaa 7 sannadood ayuu madaxweyne Siraay haystay sicir barar baa taala madaxweyne aad u sharaxan tahay waddanku wax badan mu tabayaa oo uu ka yahay dhaqaale burbur dhalinyartii oo tahriibisa waxbarasho la'aan markaa maxaa kaaga qorshaysan madaxweynenimo haddaad qabsatid inaad hawlaha wax ka qabatid horta waxa weeye waxaan sameynaa kow haddii la ilaaho horta bahalkan qaadka la ilaaho wayna dilay $500,000 ayaa maalin kasta sayladeen laga qaataa oo elsi lagu soo furaa iska daaqaatay baradhada inoo timaada iyo basasha elsi baa lagu furaa horta waa mid qaadka waxaan doonayaa dadku iska diyaayeen waxaan tusinaa inaan qaadkaas lacagteena ama lacagta Itoobiya lagu gataa ayaan ku soo celinaa waa heshiis baac mushtari oo Soomaaliya iyo Itoobiya aan samaysanaa oo siman oo dhinac u buuxin
هذا دينا فائدة وين وين سيتويشن أيا سمعنا إن شاء الله تعالى ومحمد أنا وطاقير وفائدة وإنفسمته بقول كلو دي ويربان كينا وده كان فسك فضلا إذا عدا واحد نقول صوب بغضي مشرح حسبك ويعود أهنا قدومية حسبك إنجنير فيصل على ورابين وصفي عنه قررينه كل فيصل مال كلامه يمل وحصاب بغضي أبتي الذي فيصل صفي عم بينوسو دوين أرهتي dhalinyarada waxaa ka codsan aqoon-yahanada midmid su'aalayn weydiino Faysal runtii ana ugu horeeyay su'aasha weydiinayo horta Faysal waa musharax ruug cadaaya marka loo eego labada kale musharax Faysal waa nin muwaadin runtii oo waxyaabo badan lagu soo xusuusan karo hal su'aal baan weydiinayaa Faysal Cali Waraabe oo ah haddii Ilaahay kuu guuleeyo Ilaahay waxaanu ka baranaynaa xilka kuu guuleeyabe qaadkan bulshadii waalay sixirba intaasoo $1,000 laga qaado 1,000 goorna Faysal marxaati ka ahay inuu qaadkii waxyaaba ka hadlo Faysal Ilaahay haduu ku guuleeyo qaadkan dadkeeni waalay sixir barkii nagu riday ma inaga qabanaysaa aad uma Ilaahay mahad subhanahu wa ta'ala wana maalmi khayrka qabay Ilaahay khayrka nasiyo Ilaahay abaarta inaga qaado Ilaahay roob nasiyo waxaan idku hambalyeeyaa intaas oo dhalinyaro ah oo qaad cunino maanta maqaaxi fadhida ayaa horta idku hambalyeeyaa laakiin waxa weeye annagu insha Allah ta'ala waxaan jecelahay horta marka horeysa in dhalinyarada shaqo u abuurnaan jecelahay insha Allah ta'ala waxaan jecelahay inay meel ku maaroobaan oo kubadda ku ciyaaraan oo tenniska ku ciyaaraan oo basketball ku ciyaaraan inuu sameeyaan jecelahay oo maqaaxi fadhiyeen ay sportka ka faa'iido jirka dhisaan ma doonaa insha Allah ta'ala waxaan rabnaa inaan iskuuladeena 5% aan u sameeyno iskuulada farsamada إما قوي أوتشينو واحد فرسمة إنه نودك يا تايلس كم تجرو واحد لا ينو حيل كلام تجرو واحد مقالة زي نودك توبوين كم تجرو عنتي فرسمة نجي سمينا إن شاء الله تعالى نوقف كسر سميس ما أنت دتك إنه سوق حي يمنينتها إنه سوق عليه هذا ما أنت والعقب بدأ ميرك الشقيس أنا فرسمة يقانا ورينشي كيف قرنيان دكوريش كيف قرنيان لو ده واحد برتي إنه واحد سمينا اللي الله واتن شام عضاد سكول قرى أو فرسمي متجرو اسكولada farsamada ay sameeyaan insha Allah ta'ala mechanic baa sameeyaan waxaan noqonaysaan wastaad baan noqonaysaan rijil aan noqonaysaan qof kasta shaqo qabsan insha Allah ta'ala dadka waa jahaynina waxaan jecelahay in la dagaalano gaajada maxaan la dagaalano koow waxayna soo saarana gabiilay boorame oodweyne iyo beer baynu beerana insha Allah ta'ala aan raashin leeyno cunno waxaan cuntaan dhacay inagu soo dhamgarayna waa joojinna insha Allah ta'ala qaadka wax weeye qofka marka waan tusina qaadka mudarradiisna dadka u sheegina inaanu saxadiisa u fiicneen inaanu reerkiisa u fiicneen inaanu dhaqaalihiisa u fiicneen qofka iska daayo geena hore geena dawla shaqaynaya si qaan waqti ba looga helin cashuurta waa ku kordhinaa hadda la ilaa elsigan waa ka joojina waxa laga cagsi lagu goorsanaya marka waa inuu qofka ka timaada ku qasbayna si afweyne waa inuu qofka iska daayo saanba iska daayo waa inuu iska daayo Faysalow dhammaan wada professoro dhammaan jaamacadda ka soo baxeen yaa maqaaxidaas ay wada fadhiyaan dhammaantood nin aan baras oo aan jaamacadda soo dhumayn mitro siro edeblew fadhiyaan sharaf leh waxa laga yaabaa waxoogaa different inay macallimiinka yihiin waxa la leeyahay waxay hayaan mitran waa muhiim in farsamo aad baad u mahadsan tahay imaantikaaga aad noo timid aad baan ugu faraxnay horta may faantay waayo musharaxaygii baa tahay ruuxantii weliba reerkiisa tahay adigu ka laga baqay waa ilaahay markaa ruuxantii markaa waxaan jecelahay dee inaad waxaa dhalinyartaa waad arkaysaa سؤال بودينا badan qaadan waa iska jibooteeni runtii waa talabaade inagu horta waxaan doonaynaa iskuuladeena haddii la yidhaaho iskuulada dawladda waanu xoojinaynaa waxaan doonaynaa iskuulada dawladda inaan iskuulo wanaagsan oo macaan lacag fiican qabta oo aqoon leh aanu keenaan rabna insha Allah ta'ala waxaan jecelahay inaan bilaash ka dhigno marka bilaash ka dhigna sidii magaalada dawladda magaalada kulmiye intii bilaash ka dhigtay ayay iskuulada xidhmeen oo mas'uuliyo xidhmeen oo daaqadii jajamay wixii dadka laga qaadi jiray xitaa la joojiyay laakiin waxaan doonayaa inaanu lacagta aanu u sameeynay tacliinta 7% budgetkeena waxaanu gelinaa tacliin hadda la yiraahdo 15% caafimaad baanu gelinaa waxaan doonayaa labada meelood bini'aadamka waxaan waa caafimaadka iyo waxbarashada labadaas aanu xoog gelinaa insha Allah ta'ala waxaan
caafimaadka iyo waxbarashada waxaan rabaa macalinka ka soo shaqeynaya xarshin jaaliga ka saarno 10 sano oo horeeya ilaa secondary ka dhigana insha Allah 5 sano ilaa ka dhexe 10 sano ilaa secondary ka dhigana qof kasta oo reer Soomaaliland oo waxaan doonayaa inuu u yeesho uu helo access inuu waxbarashada oo ku koobnaa inta wax haysatee qof kasta kuwa private ka waxaan ku soo saarnaa sharci yaa macalinka ah meesha ku dhigsiya mata meel lagu ciyaaro ma leedahay arday misaardo meesha fadhiisa professor jooga ma yihiin qaar mutacalimiina xoogan saarayna laakiin waxaan la tartamayna waxaan doonaynaa ka dawladdu ay ka qurux badnaato ka public aan jecelahay ka private insha Allah ta'ala taariibna wax la socdo wax qabad la socdo ma noo sheegaysaa aduu insha Allah ta'ala heeday horta dalkan waa hodan dalkani laakiin waxaan hubaa wali dawladda si ummadda xuqabo inay man ilaana iman beelata markaan waxaan ku sheegayaa inaan iga go'an inaan dalkan dal qurux badan oo cadaalad ku shaqeeya oo laga qaxin oo loo soo haajiro inaan ka dhigan jecelahay ilaahina waa la kaashay subxaanahu wa ta'ala ilaahay masaa sixir bararka waxa ugu wacan marka aanu qiyaaso dadweynaha ugu wacan dadweynaha ayaa ugu wacan sababtoo ah halka markaynu ka qaxay Itoobiyaanu galnay sixir bar baynu ku galnay innaga maca saraakiishan inay naga soo wati habeen madow naga soo qaaday ee leeyahay ka baxa iyadoo ay qaad darooga tahay ayaa leeyahay ertu furta kama inaan doodin wajaala loogu furay baan FC loogu furo maalin qoraynu anagu yeelmayna Itoobiya waxayda aanu wax kaga iibsano riyaalka oo qaadka walba lagu soo iibin jiray soo garanaysa maxay u dhacday marka inay doon idhaahdo ku siiya ismaar harximaanu sixir baraan ka bixna male Faysal Caarooyn dooranno Faysal insha Allah waxaan ku rajaynaynaa inuu ku guuleysto sixir baraka waxa laga baxayaa inaynu dooranno walaalayaal inaynu doorno Faysal Caarooyn ninka uu soo halgamay in badan uu soo joogay inaynu dooranno ayaynu kaga baxaynaa sixir baraka sideen aaminsanay insha Allah waxaan leeyahay inuu hal doorto Faysal aynu dooranno markaas aynu ka baxaynaa dawladdeena kowka sixir baraka imika joogta saasan leenahay annagu